walaal, sanadkii la soo dhaafay qorshe la'aan miyuu kugu dhaafay? Haddii jawaabtaadu haa tahay, waa in aad ka kacdaa jiifka kana istaagtaa fadhiga. Hor istaag miraayadda, si fiican u fiiri wejigaaga. 1 sano ka hor wejigaagu sidan miyuu ahaa? Cimrigaaga iyo da'daadu sidan miyay ahayd? Jawaabtu waa maya. Waad isbeddeshay weji ahaan, waad isbeddeshay cimri ahaan, laakiin si fiican isku xisaabi, ma isbeddeshay waxqabsi ahaan iyo horumar ahaan. Eeg dadyowga nolosha horumarka ka sameeyay. Eeg wiilka iyo gabadha kugu da'da ah ee laga yaabo in dhaqaale ahaan ay kaa hooseeyeen sanad ka hor, balse maanta ay kaa sarreeyaan dhaqaale ahaan iyo himil ahaan. Haddii aad rabto in aad korto, haddii aad rabto nolol wanaagsan oo ka wanaagsan midda maanta aad ku jirto, waa in aad go'aan cad ka qaadataa noloshaada. Nolosha jadwalka iyo himilada leh ayaa lagu gaaraa barwaaqo iyo horumar. Iska ilow nolosha jaantaroganka ah. Marka waqtigaaga aad jadwalayso, waxaad dareemaysaa in saacad walba ay kaali qaalisan tahay diamond-ka. Wax walboo ku dhaafay way ku dhaafeen. Maanta waxaad taagan tahay bilowga sanad cusub. Bal tijaabi sanadkan noloshaada, wax himilooyin sameey, wadooyinkiina jeexo, horeyna u soco. Waxaad dareemi doontaa haddaad midaas samaysid in sanad walba ay ku qurxoonaan lahayd in sidaan oo kale aad jadwal u samaysatid. Salaamullah.